qodobkii la jabsahay asoo socdaa ilmaha gadaal ala geeyay wax yar duqooshinka xataa ma arkinoo kistoo yar iyo kana gees aloo bixiyay meel ay ka rooraan xataa jid aloo suubiyo waxaa lagu qabtay waddanka Zimbabwe waxaa loo maleeyaa orod iyo waxaas iyo ma aha tartanka foolxumada ayaa waxaa lagu qabtay waddanka Zimbabwe foolxumaa lagu dhahayaa waraawo intaas oo waxaa la keenay foolxumayaal ah waxaa ku guulaystay hal tartame allahaas kii ka guulaystayaa ilaahay ma iga hor keeno cawamado iyo maalin cadeed laakiin habar lee dhashay usna habar lee dheelsisi laakiin af Zimbabwe ay ku dheesay ma competition buuka muwe iyadoo bistoola wadanay dhashay aboogeesi maahino tartamahaasaa guulaystay tartamayaashii kale waa la xanaagi kaali arag xanaag dhiiq ma jirto garbeeshan waaye daacad ma u dhicin inta waaye war idinka maxaa waayaa la dhahay maxaa waaye daacad maxaa u dhicin ninkaan waa ujeediine war unakana fiiriyay waa kana fiiriyay unakaa ka fool xunkan see loo sii kan oo waxaka Zimbabwe gacanaan ku taag may hal xaafad dhan may deganaayeen amaana allah daawadayaal ku soo dhawaada magaalada Harare ee caasimadda dalka Zimbabwe ayaa toddobaadkan lagu qabtay tartanka foolxumada kaasoo waddankaasi lagu qabto sanadkiiba mar tartankan ayaa waxay dhex martay 3 nin oo doonayay inay ku guuleystaan abaalmarinta foolxumada waddankaasi waxaase ku guuleystay tartame Mr. Maisam oo noqday ninkii ugu foosha xumaa waddanka Zimbabwe sanadkan William Masfini oo ah ninkii sanadkii hore ku guuleystay tartankan ayaa si weyn uga soo horjeestay natiijada tartankan waxa uuna yiri foolxumadu maaha in ilkahaaga ay jajabin yihiin taasoo ula jeeday ninka ka guuleystay ay Maisam oo waxyaabaha uu ku guuleystay ay ka mid ahayd ilkihiisa oo jajaban Abigaili oo ka mid ah garsoorayaashii tartanka ayaa tiri micnaha foolxumada marka qaamuuska laga fiiriyo waa wixii aysan indhuhu u bageen ama aysan jecelaysan sidaas daraadeed waxaan raadinayay waxa aysan indhaha uba roonayn ninka ku guuleystay ee Mr. Maisam ayaa yiri waxaan isku dayay tartankan dhowr jeer oo hore balse waa ii suurtagali weysay balse hadda waan ku guuleystay William waxa uu ahaa guuleystigii 3 jeer oo hore tartanka foolxumada waxa uuna sheegay in garsoorayaashan aysan cadaalad ahayn walina uu yahay ninka haysta guusha guuleystigii tartanka foolxumada ee magaciisa lagu magacaabo Maisam ayaa la siiyay abaalmarin lacageed oo gaaraysa $5,000 oo Mareykan ah taasoo noqonaysa abaalmarintii ugu badneed ee la siiyo guuleysto ku nool waddankaasi xilli dhaqaalaha waddankaasi uu marayo meel xun laakiin qofka ku guuleysta uu sidoo kale fursad ka heli doono TV-yada iyo idaacadaha waddankaas si uu barnaamijyada madadaalada uga qayb qaato قرحك ففانسين قرح أدونك ترتم فالحمى الغوى يا أبو عوض ألوسو بابا صدع قل والله صدع قل أعوذ برب الفلق صدع قل أعوذ برب الناس هذه أوجي فيها يا أبو ميدك تبارك يا سنة الساسوي عليه الصلاة والسلام أوكي خلبك أفراد بس هذا ما ذي العبسني الماء قذا هرتضل صومريه